السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي qiimaha iyo qadarinta iyo sharafta naga mudano halkan naga daawanaysan Studio Carlos Online. muuqaal cusub maanta waxaan idin haynaa fanaanka weyn ee Mursal Muuse maanta ay tahay axad taariikhduna ay tahay 15 Maarch waxa uu fanaanka weyn lagu qabtay isoo qolkiisa isku daldalaya taas oo uu shacabka Ilaahay u kiciyay taasoo Ilaahay ka badbaadiyay in amaatatiisi ay noqoto fanaanka weyn ee Mursal Muuse waxa la weydiiyay sababta uu isku daldalayay ama uu sababta isku dilayay fanaanka weyn ee Mursal Muuse waxa uu xaqiijiyay sababta uu isku daldalayay ama uu isku dilayay jawaabtiisuna waxa ahayd wuxuu yiri xaaskayga Hodan Cabdiraxmaan oo aan haysan kaadhka waaweyn ee ama qof lagu booqin karo ama qof kale lagu dacwoon karo taasoo haysata kaadhiya oo ay mar lagu soo duusho marka dambana ay ku tagto waxa uu yiri waxaan ka xanaaqay fanaanka Nimcaan Hilaac oo muddo gaaban loo geeyay Mareykanka